waxaa maanta halkan lagu soo gabagabay tababarkaas oo soconayay muddo 2 cisho ah 11 iyo 12 July 2001 tababarkaas oo lagu qabtay si aad la socotaanba gobolka Mudug caasimadiisa Gaalkacyo tababarkaas waxa loo qabtay haldoorka haweenka Puntland ee u qareemayaasha ah kuwaasoo gaar ahaan ahaa kuwii horay ugu qareemay doorashooyinkii 2016 ee kuraastii hore baarlamaanka ee aqalka sare aqalka hoose ahaa ee Puntland iyo federaalka isteedada ka badan u qareemayaasha xaqiijinta koontada haweenka ee 30% oo ay gacan siinaysay wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland kuwaasoo sidoo kale gacan siinayay gabdhaha iyo qoysaska kobcintooda ama danta yar ee badqabka qoysaska daryeelka danaha yaryar iyo ilaalinta tacdiyada ka dhanka ah haweenka uqarameyaasha haweenka ee Puntland 2001 waxa u taagan inay u qareemaan ama raadiyaan gabdhaha Soomaaliyeed siday qoontadeeda u heli lahaayeen aqal sare iyo aqal hoose haddaba u qareemayaasha oo hadafkooda ka rumaynaya waxa hay'adda TAG Foundation iyo ISA siisay tababarkaas 2 cisho ah tababarkaas oo looga hadlayay mowduucyo kala gedisan khuseeyana arrimaha doorashooyinka si loo xaqiijiyo iyo wadooyinkii loo mari lahaa xaqiijintaas sida lagu gaaro iyo hadafkii waxa wadajir loo soo bandhigay dhammaan intii dooda lagu jiray waxa loo soo bandhigay dhammaan caqabadihii ka hor yimid haweenka u taagnaa musharaxnimada kuraastii baarlamaanka Puntland iyo federaalka dhammaan ahaan waxa la soo bandhigay meertadii doorashooyinka iyo diyaar garowgoodii oo arrin hore ah waxa laga hadlay filitaanka waxa laga filayo gabdhaha hadda u taagan doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose waa muddada tababarku soconaysa dood iyo falanqeyn kadib waxaa ka soo baxay qodobadan ama warmartiyeedka hoos ku qoran ugu horreyntii warmartiyeedka wuxuu u mahad celinayaa ilaahay baa mahad iska leh hay-addii fududaysay ee TAG iyo kuwii gacanta siinaya ee ISA sidoo kale waxay u mahad celinayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda Puntland iyo dowladaha xubnaha ka ah beesha caalamka waxgaradka oo ku bixiyay waqti dheer siday arrintan u hirgeli lahayd si loo xaqiijiyo qoontada 10% waxa ay ugu baaqayaan qodobadan soo socda waxay ugu baaqayaan dowladda Puntland cuqaasha matalayaasha bulshada rayidka ama daneeyaasha dhammaan ergooyinka soo xulaya in gabdhaha la xulayo ka qayb qaadanayaan siyaasadaha ku sifaysanna waxa lagu xulanayo diin waxa loogu baaqaya waxa weeye dowladdii cuqaashii qoladii ergada ahayd iyo dhammaan daneeyaasha in sifooyinkan ay fiiriyaan ama tixgelin siiyaan
waxaan lagu xulanayaa gabdhahaas inay xagga laga fiirsho diintooda, dhaqanka wanaagsan, aqoonta iyo waayo-aragnimada, aqoonta ay u leeyihiin deegaanada ay kasoo jeeda ama ay ka socdaan, isla mar ahaankaasna fahansan waajibaadka iyo waxa laga rabo iyo waxa lagu leeyahay. saddex, uqareymayaasha oo ay ka go-an tahay ka qaadista inay sii wadaan dadaalkan gabdhaha uqareymayaasha oo ah shuruudo aan son kusoo lagu soo xulinayo 30% in waxaan rajaynaynaa iyadoo shuruudahaas la eegayo ay arrintaasu hirgasho inay ka qayb qaataan wacyigelinta ergada. ergooyin baa soo xulinaya, ergooyinkaas soo xulinaya ruuxeeda inay ka fogaadaan inay lacag ama wax lamida qaataan, laakiin ergadaas ay ku xulato ama mudnaanta ay siiso shuruudaha aan soo sheegnay oo taxgelinta leh rag iyo dumarba. qofkaasoo diintiisu see tahay, dhaqankiisu ma fiican yahay, waddanka iyo xaaladda ma la socdaa, qof habboon oo mathali kara dalka iyo waddanka oo ka yimid ma yahay, ee aysan u fiirin lacag. ugu dambeyntii uqareymayaasha oo xaqiijinaya waxay u mahad celinayaan sida horeba aan ugu mahad celinay hay-addii soo qaban qaabisay ee taag, qoladii ciise oo fududaysay, iyo in allah intii gacan ka geysatay. waa u mahad celinaynaa dowladda puntland iyo daneeyaashana waxaan ku adkaynaynaa oo ku xoojinaynaa shuruudaha in ay ilaaliyaan, tixgeliyaanna oo adkeeyaan in la hirgelisho ama la xaqiijiyo 30% gabdhaha ay leeyihiin ee aysan gorgortan gelin. ilaahay baa mahad leh.